madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa khudbad ku saabsan xuska sanad guurada 29aad ee ka soo wareegtay markii ay jamhuuriyadda Soomaaliland dib ula soo noqotay madax bannaanideedii u jeediyay shacbiga Soomaaliland iyadoo guud ahaanba Soomaaliland laga mamnuucay fagaarayaashii loogu dabaaldegi jiray maalinta qarannimada Soomaaliland xanuunka dunida aafeeyay ee coronavirus COVID-19 awgii madaxweyne waxa salaantaada u diyaara cutubyo ka tirsan ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland munaasabadda 18 May awgeed mudane madaxweyne ku soo dhawow xuska sanad guuradii 29aad ee ka soo wareegtay markii Soomaaliland dib ula soo noqotay madax bannaanideeda oo ku sidkanayd sanadii 1991 bishii May 18 ayaa lagu qabtay qasriga madaxtooyada Soomaaliland waxaana madasha ka soo qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi gudoomiyaasha golayaasha guurtida iyo wakiilada hoggaanka saddexda xisbi qaran taliyaasha ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xubno kamid ah golaha wasiirada xuska sanadkan sidii sanadadii hore looguma dabaaldegin maadaama uu dunida aafeeyay xanuunka coronavirus COVID-19 madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa shacbiga Soomaaliland ku hambalyeeyay xuska maalinta qarannimada Soomaaliland sanad guuradiisa 29aad waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan shacbiga Soomaaliland meel uu joogaba guud iyo dibadba waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan golayaasha qaranka ee Soomaaliland axsaabta qaranka ciidamada qalabka sida ee kala duwan dhammaantood meelay joogaanba waxgaradka culimada baayac mushtarka rag iyo dumarba dadweynaha Soomaaliland iyo madax raqameedkooda dhammaantood waxaan ilaahay uga baryaa caafimaad qab iyo inaynu sanad guurada teeda kale ku gaadhno bashbash iyo barwaaqo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa si cilmiyeysan u sharaxay guulaha laga dhaxlay qarannimada iyo madax bannaanida Soomaaliland waxaynu maanta xusaynaa 29 sanadood oo aynu wada jir wax wada qabsi dib u dhis dimuqraadiyad isku tanaasul iyo kala dambeyn ku maamulanay dalkeena xaalad kastoo adagna aynu kaga soo gudubnay inaga oo gacmaha is haysana waana arrin caalamku inagu majiirto lagana baran karo casharo ku saabsan guulaha aynu ku gaadhnay isku kalsoonida iyo talada inaga ka soo goday dadkeena ee aan dibadeena kaga iman heerka dawladnimo aynu ku gaadhnay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa u mahad celiyay guddida u diyaar garowga koortaga xanuunka COVID-19 iyo maalqabeenka Soomaaliland ee taageerada dhaqaale ku bixiyay la dagaalanka xanuunka coronavirus waxaan u mahadnaqaynaa oo mahadnaq ballaaran sheedinayaa guddida loo xil saaray hawsha ka hortagga fayraska ee maamulkeeda oo shaqo wacan qabtay madaxweyne ku hogaaminayay waxaan aad ugu mahadnaqayaa maalqabeenka Soomaaliland oo intoodii baday si degdeg ah si wax ku ool uga soo jawaabtay oo shalay raato labada shirkadood waaweyn Dahabshiil iyo Talas loogu dambeeyeen hawsha ku socotay maanta labada bilood ee wada hawsha badankeeda 80% waxay ahayd dhaqaale Soomaaliland iska urursay mudane Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha Soomaaliland ayaa iftiimiyay in xukuumaddiisu xoojisay cududda iyo tayada ciidamada qalabka sida ee Soomaaliland taasina ay keentay la yareeyo dambiyada ka dhaca magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland waxa la xoojiyay tayeynta ciidamada dhinaca qalabka tababarka moralka iyo cududooda waa markii ugu horeysay ee tababar leeyr sarkaal dalkan gudihiisa lagu qabto oo ay ka soo baxayaan saraakiil ciidan oo ay ku jiraan hablo waxa ciidamada amniga guduhu
waxay hoos u dhigeen boqolkiiba 9 dembiyada ka dhaca magaalooyinka waaweyn iyo dalka guud ahaan waxa iskaashi iyo amni lala sameeyay dalalka dariska ah si loo xakameeyo dembiyada xuduudaha ka gudba waxa la dhameystiray isbitaalka ciidamada qalabka sida waxa inaga baxay dagaal beeladaha loo gurmanayo ee kolba barkad iyo beer iyo waxaan ka weerin la isku dilaayo 9 milyan oo dollar baa inaga baxay dhexdhexaadin iyo u gurmad iyo kala qabashada beeraha labada sano u dambeeyay ilaahay mahadi labada sanado u dambeeyay markii la tiriyay kiisaskii soo galay boqolkiiba 85 ayay maxkamaddu go'aan ka gaaray madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa dul istaagay wada hadallada u dhaxeeya Somaliland iyo Soomaaliya isagoo madaxweynuhu fariin u diray dalkaanu jaarka nahay ee Soomaaliya madaxda maamusha bulaanka iyo sawaxanka siyaasadeed ee ku saabsan wada hadallada Somaliland iyo Soomaaliya ee laga wada warbaahinta waxay muujinayaan bisay la'aan siyaasadeed iyo waay aragnimo la'aan iyo garasho gaabnida dadka maanta maamula xamar ee ku hadaaqa maalin walba soo dhajiyo boor ah Somaliland waa gobol ka mid ah Soomaaliya aad bay wax loola yaabo tahay waxaan u sheegaynaa Soomaaliya inaanu 60kii midownay 30 sano dagaal iyo rafaad ku jiray 30 sano kala maqneen waxba aaniga dhaxan meel ka dhac ay tahay aan qaadan karin in la yiraahdo hawshaas xamar ku xidho idinkii xamar ka heshiiya ما كم يشين حمر عدو بارو أرجع ودولة قرى قرنية الصومالية ديدن أكبرستان نكش قرنية ديدن علبان ما أقبلك الروح جو إنما حاول تلاقوه هذا وحي كلا تجا هاي كلا جو هاي با أنا كوا هذا سعادة دير برد كل شيء جيا كلا جو مو يوح كلا جو هذا مين وينو كلا جورو وينو كلا تغني ما ولا لنا لبا دو درس ما ahaan hadii kala waxa wadaan waa heli doonta arinta labaad loo kala bixi kara waxa weey maxkamad caalami ah oo arinteen aan toos beesano oo arab madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku guda jira khudbadiisa uu kaga hadlayay sanad gurada 29aad ee maalinta qarannimada Soomaaliland ayaa cadeeyay mowqifka Soomaaliland ee la xiriira dalalka ay Soomaaliland jaarka la tahay waxaanu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland fariin u diray jimciyadda qaramada midoobay Soomaaliland waxay xoojinaysaa xiriirka wanaagsan ee ay la leedahay dawladda ay jaarka yihiin iyo kuwa kale ee caalamka oo dhan xiriirkaasi waxa uu mar kasta ku salaysan yahay wax wada qabsi nabad jaar wanaag isqadarin iyo ka faa'iideysiga fursadaha dhaqaale iyo ganacsi ee la wadaagi karo wadamada beesha caalamka waxaan ugu baaqaynaa in ay tixgeliyaan isla markaana taageeraan go'aanka iyo ayaka tagshiga shacbiga Soomaaliland ee qaraarkiisa ay cod afti iyo tala iyo dawlad dhismo ku muujiyeen gargaarka caalamiga ah waxaan soo dhaweynaynaa gargaar kasta iyo deeq kasta oo beesha caalamku ku caawinayso Soomaaliland balse marna aqbali mayno gargaar deeq qaaraan dhaqaale iyo hawl soo marta Muqdisho iyo Soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa gabagabadii munaasabada lagu xuseeyay sanad gurada 29aad ee ka soo wareegtay markii Soomaaliland dib loo soo noqotay madaxbannaanideeda ee 18 May kadib biladgeesiyo guddoonsiyay 12 sarkaal oo ka tirsan ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Ridwaan Caydiid Ismaaciil Akiid telefishinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland xarunta qasriga madaxtooyada